waxaa maanta loo qaybiyay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Salel raashinkii ka yimid dhinaca wadanka jaarkan ah ee Djibouti isla markaasina uu soo diray madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele dadkii iyagu abaaraha baan ay saameeyeen iyadoo raashinkani loo qaybiyay qaar ka mid ah gobolada Somaliland oo intooda badan ay asiibta abaaraha aadka u daba dheeraaday hadaba gudida abaaraha ee gobolka Salel ayaa waxa iyadoo ay maanta u qaybisay qaar ka mid ah deegaanadani loo qaybiyay raashinkani ayaa waxa ka mid ah deegaanka Bariisle oo halkaas loogu qaybiyay 200 oo qoys iyo sidoo kale ceelka ku yaala duleedka Toqoshi oo isaguna halkaas loogu qaybiyay 200 oo qoys raashinkan ayaa waxa uu ka koobnaa sonkor daqiiq saliid timir bariis ugu horeyntina waxa isagoo halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudida abaaraha ee gobolka Salel Maxamed Buuni Muuse Buuc kusugan maanta goobta Toqoshi ee ceelka dhaadheerka anagoo mas'uulka gudiga abaaraha ee gobolka Salel oo ka joogna Sheekh Cabdikariim iyo aniga Maxamed Muuse Buuc waxaan maanta halkan deeq raashin ah oo ay gudida heer qaran ee abaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu wareejisay waxaanu halkan ku bixinay maanta 200 oo qoys oo tuulada Toqoshi deegaanka eeriyadeeda reeray guud ahaan raashinka gudida heer qaran ee abaaruhu ay lagu soo wareejiyeen wuxuu ka koobnaa 3,000 oo qoys qoys waxaanu u garanay goobaha degmada Toqoshi tuulada Toqoshi Bariisle Aashacade Feedhaweyn ilama iyo eeriyadooda waadari oo team labaad baa jira oo eeriyada Caliweeci Xamuud Culus Geestiin Sheekh Ciise oo ay tii labaad oo gudida ka mid yihiin hawlwadeenii ku maqan yihiin teamka saddexaad waa qoysasna eeriyada Cabdulqaadir ilama xiriir tuulooyinka dadka deegaankeeda reer miyiga oo dhaxyaan ugu tala galay zoonkan hadda aanu maanta markii labaad ka qaybinayna anagoo hore maanta u soo qaybinay tuulada Bariisle waa 200 oo qoys wax ku soo siinay tuuladan Toqoshi eeriyadeeda ceelka dhaadheerka maxaan ku yiraahdaa diigan cadceed maxaan ku yiraahdaa reerkan kale ee beeyaqasan guud ahaan maanta halkan waxaanu ku bixinaynaa waa 200 qoys isla markaa maanta waxaanu bixinay 2 goobood oo tiiba 200 qoys ay tahay ee hawshan lagu wareejay iyo xukuumadda Djibouti shacbigeega madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo shacbigiisa waxaan leenahay ilaahay mahadiyo inaga gaadho inaga jazaaysiyo sidoo kalena waxa isaguna halkaas ka hadlay xildhibaan Cabdikariin oo aadan kibaar isla markaasna ka mid ah gudida abaaraha ee gobolka Salel raashin gaadhay 200 qoys raashin gaadhay ayaa qaybinay maanta fiigan abacdi waxaan halkan mahad u celinayaa dadkii raashinka soo diray reer Djibouti shacabka reer Djibouti iyo xukuumaddiisa waxaad baan uga mahad celinayaa si fiican ayaa dadkii ay u qaybsadeen oo noloshii oo arkaysaa dadka wadiin noqoto qolina saxaafadda waxaan leeyahay madaxweyne Cumar Geele iyo shacabkiisa ay mahadsan yihiin shacabka reer Djibouti ee walaalaha nahay ee jaarka nahay aad iyo aad u mahadsan yihiin dadkii deeqdani la soo gaarsiiyay oo iyagu u mahad celiyay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele iyo sidoo kale gudida abaaraha ee gobolka Salel iyo cid alaale cid ka qayb qaadatay taakuleynta dadka abaaraha baan ay saameeyeen سيدان برين سجان دعين أنت سيدان دعين إله نجا قبل إله نجا أجور إلهي وينا واحد هاي وينا هو حاكينا هالكاكينا يسقي صاد ريبة عافيمات سيادة يانسينا عافيمات سيادة سين اللهم صل على سيدنا madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele intii soo raacday waraalaha iyo noo keenay oo qaado oo u geeyay intaba mahadaha ka gaadho abaartu way nagu haysatay wayna silcisay maxad baan u naqaynaa inkasta uu roob ka da'ay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Salel balse ayna wali waxba ka bedelin xaaladda adag ee kaga tagtay abaarta aadka u daba dheeraatay isla markaasina ay wali u baahan yihiin in gurmad loo fidiyo waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhagadalool TV-ga caalamiga Star TV magaalada Saylac